taliyihii qaybta qaarajinta sirdoonka Mossad ee Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in la tuhunsan yahay in lagu dilay weerar ay dhawaan diyaarado aan duuliye lahayn ay ka fuliyeen magaalada Erbil ee waqooyiga dalka Ciraaq. sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee FAS ayaa lagu soo waramayaa iyada oo sidoo kale ay u xog warameen xubno Carbeed iyo ila loo qaateen oo ka tirsan sirdoonka reer galbeedka. waxa ay ku warantay in weerarkan lala beegsaday 3 baabuur oo marayay jidweynaha magaalada Erbil, waxayna intaasi ku dartay in baabuurtaasi ay sideen unuga basaaska Israa'iil kaasi oo ahaa bartilmaameedka ugu weyn ee diyaaradda aan duuliyaha lahayn. sida laga soo xigtay Intersky oo ku takhasustay falaqaynta qataraha caalamiga ah, dabagalka duulimaadada caalamiga ah iyo wararka xasaraha la xiriira ayaa sheegtay in sargaalka Mossad lagu dilay weerarka. waxa ayna intaa ku dartay in weerarka ay fuliyeen diyaarado drone ah. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda duqeyntan oo ay sidoo kale dad rayid ah oo ku nool Erbil oo ah caasimadda ismaamulka Kurdiga ee Ciraaq, iyadoo saraakiisha Israa'iil aysan iyana wali ka hadlin dhacdada la xiriirta in sargaal muhiim ah oo waliba lafdhabar u ah guud ahaan hay'adeeda sirdoonka ee Mossad la tuhunsan yahay haatan in lagu qaarajiyay weerarkan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen waqooyiga dalka Ciraaq. sida ay ku waramayaan xubno ka tirsan saraakiil sirdoon, weerarkan ayaa la tuhunsan yahay inuu dhacay 8 bisha Juun, balse xogta ku saabsan tafaasiisha ayaa hadda soo baxday. xiriiro iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen sirdoonka Israa'iil oo waliba la xiriirta unugyadeeda dibadda ee basaasiinta qorshaha qaarajinta qaabilsan ayaa ilaa ay hadda wada abaabul iyo isku dabarid ballaaran oo la xiriirta inay ka jawaabaan ama ugu yaraan ay qariyaan xogta dhibka soo gaaray. shakhsigan oo ilaa ay hadda magaciisa oo saddexan iyo sidoo kale wax calaamado muujinaya shakhsiyadiisa oo sawir iyo dukumeentiyo aan la helin ayay hadda si weyn u qaadadhigayaan unugyada ugu waaweyn ee gudaha sirdoonka Israa'iil ka tirsan iyo qolyaha qaabilsan dibadda, iyadoo loo arko inuu ahaa xubin muhiim ah oo sare. marka laga hadlayo sirdoonka Mossad, waxa uu ku jira kuwa ugu sareeya, waliba waxa ay leeyihiin unug gaar ah oo qaabilsan qaarajinta oo badanaa ka dhaca meel ka baxsan gudaha Israa'iil. inta ugu badan wadamada Carabta waxaa la aaminsan yahay inay ku daadsan yihiin sirdoonka Israa'iil kuwa qaabilsan qaarajinta dibadda, waliba kuwa ugu tababar iyo tayo sareeya oo la aaminsan yahay inay ka howlgalaan meelo badan oo ka mid ah dabcan dhinaca iyo Carabta. dhawaan waxaa soo baxday ila muujinaya in xubno ka tirsan sirdoonka Mossad iyo kuwa kale oo reer galbeed ah oo Mareykan iyo Faransiis ay ku jiraan in gudaha magaalada Tehran ee dalka Iiraan lagu qaarajiyay injineero muhiim ah oo qaabilsan dhinaca soo saarista iyo farsamada ee nuclear-ka. Tehran jawaab muuqata oo gudaheeda ah ma bixin, balse caadiyan waxa ay bilowday abaabulka iyo isku dabaridka sirdoonkeeda dibadda si ugu yaraan falka dhacay iyo talaabta laga fuliyay gudaha dalkeeda jawaabta la filan kara ay u noqoto meel ka baxsan guud ahaan jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan. sirdoonka Israa'iil waxa uu ka mid yahay kuwa dhaqdhaqaaqyada ugu badan ka wada bariga dhexe, maadaama cabsida ugu badan ee Yuhuudda ay tahay Carabta, inkastoo Carabta qudhooda aanu jirin baraarug baaxad leh oo hay'adahooda amniga ah iyo in ay maanka ku hayaan qataraha culculus ee uga imaan kara cadowgooda la xiriira dhinaca Israa'iil. ilaa ay hadda Israa'iil ma xaqiijin arrintan, inkastoo ay tahay dhacdo sirdoon iyo fal sirdoon, haddana waxaa laga yaabaa jawaabteeda inay noqoto isla fal nuucan oo ka mid ah oo ay ku beegsanayso dadka ay tuhumayso in ay ka dambeeyaan. Tehran iyo Tel Aviv ayaa inta badan qaada tallaabooyin qolada kale ay ku dhaawacayso danaheeda gobolka iyo mideeda arrimaha gudaha ee amniga qaranka, balse falkan inay Tehran ka dambeysay in kale wali si hubanti ah oo hubaal ah hubsiimo loogama helin.